الله وبركاته قلب وناكسن أصحابي ميل كستو aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa galabnimo jimco ah markale waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan taariikhdu waa 18 bisha July sanadka 2025 qodobo muhiim ah aynu barnaamijka idinku soo gudbin doonaa waxa idin wanaagsan inaad aqbashaan nabadda socota oo waliba sida annagu aan doonayno aad u yeeshaan hadii kale hadalkaas ayaa haddana maanta waxaa sii daysay Xamaas Israa'iil waa la hayaa maalmahan haddaba warbixin ku saabsan war weyn oo Xamaas ay goordhow soo saartay waan idiin soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale aan idiin hayaa sheeko qosol badan oo ku saabsan maanta waxaa la yidhi Saraaya al-Qudus iyo al-Qassam iska nasta ciyaal xaafadeed reer Gaza oo jabhada cusub magacyadooda la baxay ayaa maanta Israa'iiliyiintii nagta ka saaray haddaba sheeko kale oo arikaa ku saabsan waan idiin soo gudbin doonaa Suuriya maxaa kala haysta Duruuska iyo qabaa'ilada Carabta ee halkaa wada jooga wararkii ugu dambeeyay halkaa waa dul mari doonaa warka ugu dambeeya oo ugu weyn wararkaan idiin soo gudbin doono galabta wuxuu yahay ninkii Putin ahaa ayaa u diray Iran diyaarad weyn oo hub aan la garanayn wuxuu yahay qaaday oo ka degtay saacadihii la soo dhaafay Tahraan taasoo la sheegay in walwal fara badan ay ku abuurtay Israa'iil iyo Mareykan haddaba muxuu geeyay Ruushku Tahraan wararkii ugu dambeeyay laga qoray ayaan idiin hayaa waataay qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno barnaamijka warar cusub wixii soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa galabnimo qodobo muhiim ah saan hore idinku soo sheegay ayaynu barnaamijka galabta ku faahfaahin doonaa haddaba waxaynu ka hormaraynaa nimankii Xamaas ahaa nimankii waray ku ceeliyeen war lagu ceeliyay ma waxay soo ogaadeen Yuhuuddu warka markii lagu tuuraba inay sii carray xalay waata ogeydeen barnaamijkan ka sameeyay askartiya lala hadlay xalay maantana ayaa lala hadlayaa ma garanaysaa Netanyahu iyo kooxdiisa lala hadlayaa iyo shacabka ayaa fariintan loo soo diray marka maalmahan nimanka Xamaas wax u soo socda lama yaqaanee way ka yaabiyeen Yuhuudi way yaabatay war beeshan maxaa ka soo bixi doonay leeyin xaalka beeshan Gaza la yiraahdo sidee wax yihiin haddaba galabta maxay soo saareen aan idin tuso Al Jazeera goordhow qortay waxay leedahay Xamaas waxay yiraahdeen galabta war ay soo saareen idin ma harin Israa'iilay wax idin haray ma jiro ilaa inaad heshiis qaadataan xarakada muqaawamada islaamiga Xamaas ayaa sheegtay in gumaystuhu uu ku fashilmay inuu maxaabiistiisa si xooga ku soo baxsado marka waxaan idiin sheegaynaa inaysan idiin harin waxaan ahayn inaad wadada heshiiska qaadataan oo waliba waxa ay muqaawamadu doonayaan iyo shuruudahoodu aad aqbashaan haddii aad aqbali weysaan iska jira waxa idinku dhaca malaystugtuugoy beeshaan waa la yaabaya nimankii Xamaas ahaa nimankii waray ku ceeliyay war waxay leeyihiin dhageyst wax idiin furan oo aan ahayn inaad wadada nabadda qaadataan waxaan ahayn maba idiin furno meesha waa ku fashilanteen inaad maxaabiistiina xoog ku soo daysataan waxaa hadda idiin furan inaad aqbashaan dhammaan shuruudaheena kula shuruudaheena ila aqbashaan nimanku karti badana geesisana nimanku waxay kala hayaan bale warkaasi wuxuu leeyahay wallahi wax kale baydnaan midii furneli hadii kale waxaas bidaadi ku dhigno la yaabi doona xalayna askarta ee maantana dawladii iyo shacabkii la hadlaya waa sheeko runtii cajiib waaye oo runtii aad u wareersan
waayahay isla gaza ayaynu ku jirnaa wararkeeda goor dhaweyd gantaalo ayaa laga riday dhanka waqooyiga gaza maalmahan gantaaladayaa soo laabtay israa'iil waa yaabad tahay nimankana gantaalaha xaggee ka keeneen 2 sanaa la dagaalamayaa mar gantaalahan waa la weynaa mar waa soo noolaanayaan xaggee meeshan wax ka imaanayaan ilay haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay goordhow soo dhacay Al-Jazeera waxay qoraysaa ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay ka hortageen gantaal ka soo dhacay dhanka waqooyiga Gaza ciidamada Israa'iil waxay sheegeen ciidanka difaaca cirka Israa'iil inuu ka hortagay goor dhaweyd gantaal dhanka waqooyiga laga soo riday kaasoo ku socday sida la sheegay deegaanada la yiraahdo Gulaaf Gaza la yiraahdo waa Gaza hareeraheeda meesha Yahuudda degana nagta laga saaray qodobkaasuna Gaza wararka ka cusub waay sheeko kale cusub ah jirta oo Gaza baata cajiiba waxa la yiri Al-Qassam iyo سرايا القدس اسكرستمات عيال حافظات إيش أبابولي وجبهة السمايست داد إهل كودي للاي قرابة دودي للاي دادكي لردشي للاي أو عريسانو عيال حافظات المير يرى وانتوبر في عنا هيسان أيا وحير هذين أنك جبهة مقعيدو دان لبحني أنك لما كان ما أنت نكتك ساريني نور نستيد هذين هاي يوكي على القصاب إسرائيل القدس حوجا جوجا لرباطها أنا كا كوفستير اللي بكا وابا جماهير ووجدناي أنا مركنا أنك قشرنا كله إبل مركيسو كسو قشتي وروح كسو قشتي ما غنجيت أنا مركنا كقشرنا باش نسوين حتى مركنا دي تسو الجزيرة وربحنا قرطي وحلا راي قلت هذا اللي يرادون الناصر صلاح الدين أيها شيكتي إني برتلمامات سدين عيدا كقوميستها يكسو كان جبالية guutada la yiraahdo An-Nasir Salahuddin ayaa waxay duqeeyeen meel ay isugu yimaadeen ciidamada Israa'iil iyagoo waliba kaashanaya guuto kale oo ciyaal xaafadeed oo la yiraahdo Umar al-Qasim iyo Shuhada al-Aqsa meel askartu ay isugu yimaadeen Israa'iiliyiinta bariga Jabaliya ay maartay duqeeyeen Jabaliya marka waxa ku taala waqooyiga Gaza marka meeshaas marka waxaa maqlaysaa 3 ciyaal xaafadeed guutooyin waa macnaha yaryar waxaa la yiraahdaa An-Nasir Salahuddin qola la yiraahdaa qolada kalena waxaa la yiraahdaa Umar al-Qasim kuwa kalena waxaa la yiraahdaa Shuhada al-Aqsa marka kuwa weynaa ma aha maanta waxa faysteenaya waa jabadaha yaryarka waay waxay yiraahdaan maanta anaga loo daayma marka meeshaas hawshu Gaza maray horta waxay leen karaan waa laayeen waxay guri burburin karaan waa burburiyeen maanta waxay maraysaa inay gacan ku gambad ku jiraan waati shalay Al-Qassam xalay ay lahayd askari kasta booskiisa waaba ugu iman doonaa isagoo taagana inaad isdhiibto ku dadaal hadaa isdhiibooyso ku dileena waaba ku iman doonaa taangi ku jir ama badhaa taagnaaw ama beeba ku jir aday ku taal anagoo ku soo salaamayna kuwii ku soo salaamaanahay waay marka sheekada Gaza marka halkaas baraysa kullu adika wixii tafaasiilaya warara halkan nooga soo gudbin doona sheeko marka cajiiba soo socota oo ku saabsan diyaarad weyn oo hub inay sida loo malaynayo waliba hub aan caadi ahayn wuxuu yahay lama yaqaan gataala nuclear ayaa Ruushku wuxuu ka dajiyay Tehran haddaba war cajiib oo sheekada ku saabsan qaybta dambe aan ku faahfaahineynaa marka waxaanu galaynaa arinta Suuriya sheekadeedu way qasmatay waa lagu wareeray nimankii Suuriyaanka ahaa ciidankoodii markay ka soo bixiyeen meesha nimankii duruuska ahaa dadkii carabta ee meesha ku haray maadaama iyagu ay ku tiro badan yihiin ayay bilaabeen inay dadkii dhibaateeyaan carabtiina inta isha soo bahaysatay ayay markoodii galeen ciidanka waxay yiraahdeen adika soo kooban dadkeen soo lama laynaa anagu hadda laynayna sheekadu marka way qasan tahay meeshii Suwayda ahayd way qasantay marka waxa leeyahay waxaan u Israa'iil ka dambaysa inay waxaan qasmaan kadibna ay ku marmarsiyo nimankan waa la jarayaa maamul gooniye noqonayaan kadibna Israa'iil ku biirneen dhahan dhulkaas Israa'iil hal mar ay qaadatay rabta
afkaarta u degsan marka haddii meeshu nabad noqoto carabta iyo duruuskuna wada deganaadaan suuriya kasii mid ahaanaysa iyadu dee tabar ma hayso markaas laakiin dhulkii inay qaadateen rabtaa suuriya oo dhan nimankaan inay laqaanay rabaan u fiirsada buuraleyda golanay laqeen meelo kale qabsadeen buurta la yidhaahdo jabalu sheekhay qabsadeen haddana koonfurta dhanay rabaan inay laqaan duruuskan iyo waxa dhulkooda inay qaataanay rabaan warrigo ku imtixaansanaa marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyey arrintan suuriya laga qoray aljaziira goordhow waxay qortay ninka madaxda u ah qolooyinkan qabaa'ilka carabta wuxuu sheegay inay dhacday majaazir wax la yidhaha ama xasuuq madaxa la iska jaray kufsi gabdhaha loo geystay waxay ka dhaceen Suwaydaa arrinkaasu markuu wuxuu leeyahay wuxuu ku eedeeyay dawladdu inay ka gaabisay dadkan inay badbaadiso ciidankii dawladda iyo wixii markii magaalada laga saaray nimankii duruuska magaalada si hawsha qabsada la yiri nimankii ku takrifay dadkii carabti meesha joogtay deegaanka Israa'iil gadaal tagalaay carabti waxa leeyahay meeshan marmarsiya rabaa sheekadaas markay dhacday ayaa marka waxaa dhacay nimankii waa isu habar wacdeen carabtii cashaa'irkii ama qabaa'iladii carabtii badawiinta ah meesha meel kasta jireen soo yimaadeen haddaba marka goordhow al-carabiya marka waxay qortay waxay leedahay ilaa 50,000 oo dagaalyahanka carabta ah ayaa waxay bilaabeen inay weerar ku qaadaan magaalada Suwaydaa isla markiiba waxay qabsadeen dhowr meelood iyo deegaano ay ka mid tahay baldatul mazra'a markaas waxaa la sheegay waxay markaa isku faafiyeen dhinaca waqooyiga iyo dariiqa Dimashq iyo Suwaydaa isku xira dhulkaas oo dhan ayay nimankii qabaa'ilka qabsadeen fiiri duruusku daday laynayaan waxna iska macali karaan afarta dhinac tiroma nagta laga saaray Israa'iil drones soo dirtay marka waxay duqeyn ku bilowday badawi waa carab waa dad sunniyiin ah waa laga gardaran yahay dadkoodii madaxa laga jaray gabdhahoodii la kufsaday duruuska kibir anaga yaa nala hadli karo waay hadii la isfara saaran nagta laga saaraa macnaha Israa'iil loo soo gurmareys markii konto kun ay gashay oo duruuskii nagtay laga dhiga la rabo ayaa diyaaradihii droonka waxa yimid Israa'iil haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka al-carabiga wuxuu leeyahay diyaaradaha droonka Israa'iil waxay bartilmaameedsadeen deegaanada gobolka meesha dhibaatadu ka dhacday waxaana la sheegay in ay beegsadeen dagaalyahanada cashaa'irka ama qabaa'ilka kuwaas oo ka qayb qaadanayay dagaalka ka socda Suwaydaa u fiiri way soo gashay Israa'iil nimankan ay duqeynaysaa nimankii cashaa'irku waxay leeyihiin ayna al-carab ayna sunniyiin al-caalam ayn aaway warkeeda ma jiro meeshaan warkeeda ma jira nimanku waa ka adag yihiin dawladdiina toos nimankan uguma hiilin karto Mareykan iyo wixii oo dhan waxay leeyihiin qowmiyad yara maaragtay la dhibaatay markii qowmiyadkii in dadkii la deganaa la heshiisay dadkii laynayaan marka darada inta la agfiiriyay nimankii marka carabta ah way soo habar wacdeen ilaa meel kasta ka soo socdaan war nimankan waaba ka taqwar Israa'iil waxay rabtaa keentay taageen waa feenanaynaa ilaa nolosha ku feenanaynaa dawladdii waxay qaban kartaa male ciidankii militariga dawladda duu meesha gal Israa'iil waa duqeynaynaa ilaa maxaa idin keena meesha Israa'iil wax kale shan kara male Turkiga waxaan oo dhan waa quraafaad waxay wadaan war sheekada beesha ka socota sheeko walaala ka socota marka wararkaas soo kordhay wixii cusub barnaamijyada kale bal iskula socodsiin doonaa hay'isiinta kadib waxaan galaynaa diyaaradan Ruushka oo hadal hayn badan dhalisay ee ka degtay Tehran sharikada Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha ugu dambeeyay barnaamijka aynu maraynaa qaybtan waxaanu kaga hadlaynaa diyaarad xamuul sida oo weyn oo waliba qaada madaafiicda lidka diyaaradaha iyo gantaalaha difaaca cirka iyo waxa dhan qaadi karta waxay wadana aan la garanayn ayaa shalay gelinkii dambe waxay ku habsatay oo ay ku degtay magaalada Tehran markii wixii ay waday laga dejiyo markiiba la qaadayna hore ka duush shaki ay yimid marka dadka wax falanqeynay waxay leeyihiin maxay wadi kartaa dada waxay anzimatu difaac maartay aljaw maartay hanaanka difaaca cirka ayay waday qolaale
qolo waxay leedahay arma Putin inta xanaaqay wax soo qariyay meesha nimankan iska dhiciya yiri Putin wuxuu ka xanaaqay gulay markii hore uu isgaabinay wuxuu ka xanaaqay markii dhawaan uu Donald Trump dhahay gantaalaha siinaa Ukraine gantaala casriya iyo waxbaan siinaa soo ma dhihin ninkan waaba soo raray diyaaradu inta u soo bixiyo soo dhig meeshan inuu necab yahay Trump iyo Israa'iil iyo Iran inay hubaysato iyo alaab qatara inay necab yihiin og yahay marka halkaas oo isaguna keenaali marka game culus la isla ciyaaraya hadaa hub kale halka keentay diyaaradaha halkaas iyo maca hubkan ku filqaya waxa rabta keenana halkaas aan geynaa asaga halkaas dhibaysa marka halkaas marka Iran way sii dusineen xooti iyo dadkan kale awlaadeedii oo sii gudbinay marka meeshaas asagoo dhibaatada soo diiday marka halkan markii culays laga soo saaro Putin asna halkaas ku hanjabaya marka gamekaas la ciyaaraya intaana faahfaahinta iyo cidda warkan qortay iyo aan u galin marka hore diyaaradda aan daawano iyadoo soo dagaysa video laga sameeyay oo marka oo ay warbaahinta qaar heleen tahay marka warbixinta guda galayna marka diyaaradan iyo waxay tahay iyo nidaamkeeda wax laga qoray majalada la yiraahdo ad-difaac al-arabiya la yiraahdo waa majalad ka harasha arrimaha militariga oo wararka gaarka ee militariga keenta waa journal carabtu leedahay la yiraahdo ad-difaac al-arabiya la yiraahdo hadaba markaan idin tuso wuxuu ciwaan uga dhigay isagu wuxuu sii qiyaasayaa qoraaga warbixinta anzimatu difaac jawi macnaha hanaanka difaaca cirka oo ruushku ku dhaarto ayaa loo malaynayaa waa macnaha inay waday diyaarad xamuul oo ruushku leeyahay oo soo caga dhigatay magaalada Tahraan ee caasimadda Iran waayahay warbixintu marka way sii socotay waxa leeyahay diyaarad xamuul ah oo militariga ruushku ay leeyihiin oo nooceedu yahay IL-76 ayaa waxay degtay garoonka Tahraan caasimadda Iran ayay degtay iyadoo halka ku faaruqisay xamuulkii ay waday si dhaqsi ah ayayna u dejisay xamuulkii kadibna waxay ku laabatay magaalada Moscow ee caasimadda wadanka Ruushka waqti kooban ayayna hawsha ku qabatay ayaa la leeyahay waayahay warbixintu marka dhanka kale way sii socotay waxa leeyahay diyaaradda nooceedu waa IL-76 waana diyaaradihii waaweynaa ee midowga Sovieti waagiisii la sameeyay diyaaradan waxay awood u leedahay inay shaqayso oo goobaha dhibaatada adag ay ka jirto ay ku degi karto kana kici karto sida eeraboorada jajaban iyo hawada meelaha ay aad ka xun tahay iyo waxyaabahaas oo dhan waxaana markiiba ay hawada la geli kartaa oo ay qaadi kartaa konton tan oo xamuul ah ayay horay u qaadi kartaa hadaba waxyaabaha ay qaado oo caadiyan ay ku shaqayso waxa kamid ah gawaarida gaashaaban madfacyada iyo sidoo kale hubka casriga ah iyo hanaanka difaaca cirka iyo taangiyada iyadoo sidoo kale diyaaradan loo isticmaalo goobaha dhibaatooyinka ay ka jiraan iyo dagaalada ayay tagtaa oo markaa loogu talagalay inay ku degto kana kacdo way intaasay mid wadaale مدرعات لو ما باهنا دي إيران مدرعات ما عيدا infantry iskama hor imaanayaan beebayaal iyo u baahan meeshaan diyaarad iyo madfac la isku baabiino iyadoo lagu soo gaarinaba meeshaan la isdubana taangi iyo hadda warkiisa lagu ma jiro laakiin waxa kale ee meesha ku jira muxuu yahay hanaanka difaaca cirka hanaanka difaaca cirka noocu noqon kara awal waxay haysatay S-300 oo ruushku uu sameeyay oo duq ahaa kaas waxba waa ka qaban waay diyaaradaha laakiin mid turkiga uu ruushku ka soo gataa jiray S-400 la yiraahdo iyo mid ruushku uu haysto S-500 la yiraahdo labadaas hanaan marka caadi ma ah kuwaas marka loo malaynayaa midkood in maaragtay halka laga soo dejiyaa la leeyahay marka sheekadan waxay walwal fara badan ku abuurtaa leeyahay Israa'iil iyo Mareykan
iiraan waxa loo keenay ilaa hadda waa un iska kaasaa loo malaynayaa kanaa loo malaynayaa laakiin diyaaraddu inay diyaarad military tahay alaab soo qaaday dejisay baxdayaa la ogyahay alaabtiina iiraaniyiintu ay qaateen ونلا وحصوق رقيبة كومنتسك وعربة ومبرينا وقاسم المجدي اللي لا وحوليه مدعي كرتا مدحية نوكليرا إن لو كيري معنا قنتاريهي وهي ستابوكتاي ويكو قراعيسي مالكستا قنتاراهاس أفكودي أون لغو حريا نوكليرك بركا أربو أسود دوسية شنطو حبا إلا حدو حبا أكيري دمك بركا شاكرا سايدو هالكا تاغن هدبا وحي فكر يا ركتي أقبتان لو سو قرأ دي الله يدو برنامجyada soo socda ayaa wixii cusub adana aan mar kale isku wareysan doonaa like gareeyo oo share gareeyo fakarkiina waa muhiim soo qora hadaad cusub tahay subscribe ka iloobi YouTube ka Facebook na follow gareey nabad